hay-adda qani afriqiya sidoo kale dugsiga sare Al-Nuur ee magaalada Burco ayaa munaasabad ballaaran oo Sabootiyey u sameeyay 7 arday oo ka baxday dugsiga sare Al-Nuur ee magaalada Burco kuwaas oo hay-adda Geeska Afrika ay u dirayso deeq waxbarasho dalka Suudaan ah. munaasabadan ballaaran ee lagu sabootinayay ardaydan oo ka qabsoontay magaalada Burco ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta hay-adda Geeska Afrika, maamulka dugsiga Al-Nuur, waalidiin, waxgarad iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu horeyntiba gudoomiyaha hay-adda Geeska Afrika ee gobolka Tuurir Shaafici Nuur Jaamac iyo maamulaha dugsiga sare Al-Nuur ee magaalada Burco Sheekh Cabdiqani Awsaalax iyo sidoo kale xubno kale isugu jira waalidiin iyo waxgarad oo halkaas ka hadlay waxay dardaaran u soo jeediyeen ardaydani waxaana kamid ahaa hadaladoodii sidatan. waxaan u fadhinaa xaflad aynu ku sii sagootinayno arday deeq waxbarasho ka helay oo ugu baxaya dalka Suudaan gaar ahaanna jaamacadda Afriqiya Alcaalamiya. dadaal in badan soo socday maanta ayaa Ilaahay inoo suurta galiyay inay soo gabagabado ardaydina markaa aynu markaasi amba bixino. ardaydaasi waxay heleen kuliyado qaaliya oo ay kamid yihiin caafimaadkii, oo ay kamid yihiin markaa beerihii, oo ay kamid yihiin markaa teknolojiyadii, oo ay kamid yihiin petroleum engineeringkii. waxaanay kamid yihiin ardaydani 19 guud ahaan dalka ka amba baxaya oo markaa ay dirayso hay'adda qani afriqiya ayay 7 arday ay maanta sii sagootina ay kamid yihiin. marka koowaad ardayda waynu la sii dardaarmaynaa, waxaanu leenahay waxaad u baxaysaan wax weeyaan deeq waxbarasho, waxa idin sugaya waxa weeyaan dalkiiba idin sugaya, madaarista gobolkiiba idin sugaya, waalidkiiba idin sugaya, naftiina lafteedu ayaa xisaabteedii barnaamijkeeda leh. waxaas oo dhani waxay markaa ay sugayaan waxaad la soo noqotaan. sanad walbana arday baynu dirnaa oo laga yaabaa in dafcadii 12aad ay tani noqoto. ardayda aynu dirno markaa badankoodu way soo noqdaan kaalmo wanaagsan iyo markaa shaqooyin wanaagsan iyo aqoon fiican dalku way ku soo kordhiyaan. anaga kulli dugsi ahaan dugsiga Al-Nuur maaha markii koobaad ee ay ka tagto arday u baxaysa waxbarasho dibadeed. anaga dugsi ahaan runtii sharaf ay noo tahay. waxaa soo noqday dadkii waxbarashada halkan looga diray oo dalka runtii meel muhiim ah kaga jira. ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan isleeyahay dugsigaas iyo dad ka baxay mustaqbalka waxay noqon doonaan dad wadanka uu aayo. waxaan u dardaarmaynaa in ay mas'uuliyadda ka soo dhalaalaan, inay xasuusan doonaan munaasabadan, inay xasuusan doonaan dadaalkii iyo juhdigii waalid iyo macallin iyo cid waliba ay soo gelisay ayna dayici doonin. waxaan baryaynaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu dhalinyaradaas muhiimadda ay u baxayaan ku soo guuleeyo, inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala iyagoo nabad qabo soo guuleystay muhiimaddii ku soo guuleysay faraha ku sida ay inoo keenaan oo loo aayo. dadkii runtii ku tabcay oo iyaga u dhowdo qiimahooda leh, hadday waalid yihiin iyo hadday macallimiin yihiin iyo hadday maamul yihiin iyo hadday mas'uuliyad kale yihiin ba runtii iyaga aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waxaan leenahay juhdigaas aad soo gasheen ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo, xasanaadka ay yeelanaysaan ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha idin saaro. ardayda runtii waxaad tegaysaan meel meeshiinii aan ahayn, dalaan dalkiinii ahayn, dadaan dadkaa hore la dhaqnaan jirteen ahayn. wax badan baa laga yaabaa inaad ka hor yimaado. waxay u baahan yihiin inaad kusii tala gashaan oo miyuulka aad ku tegaysaan iyo hamadda aad ku tegaysaan iyo qasdiga aad ku tegaysaan marka horeba uu yahay inaad wax soo kororsataan, waxna soo celisaan. ardayda markaa waa in la dardaarmaynaa, waana u ducaynaynaa. waxaan leenahay waxaa idin dirtay oo maaragtay tacliintaas iyo waxbarashada idin dirtay Somaliland maadaama wadan dibadda tegaysaan, gaar ahaan gobolka Togdheer, gaar ahaan dugsiyada aad ka soo baxdeen iyo waalidiintii idinku tacabtay. marka waxaa la idinka baahan yahay xilka iyo mas'uuliyadda inaad qaadaan oo aad markaa cidii idin diratay waajibkii la idin saaraa ka soo baxdaan. aad marka u horeysa ilaahay subxaanahu wa ta'ala isku xidhaan oo ku xidhnaataan, ilaahay cibaadadiisa aad laazimtaan. waxaan ammaan iyo bogaadin u jeedinayaa maamulkii dugsiyadii ay ka soo baxeen. mar labaad ay yihiin maamulayaal, macallimiintii dhammaantood ammaan iyo bogaadin baan u jeedinayaa. waxaa kale oo leh ammaanta iyo bogaadinta hay-adda qaran Afriqiya ee ugu dadaashay inay helaan tacliinta sare. ammaan iyo bogaadin ayaan u soo jeedinayaa. waxaan leeyahay wada deerar badan hawl khaasan ma leeyihiin waxaan u tagnay hawl inaga ah oo magaranaysa ay gobolkooda wax ka bedelaysa ama dalkooda wax ka bedelaysa hawl iskuulka qura ama cid gaar ah ama waxaan sheegay xafiis gaar ah ma leeyihiin. wuxuu noqonayaa magaranaysa ay dad isbedelay oo dadka wax ka bedelay
marka taana dawal magaraysa in kama celinaya dadkooda iyo diintoodaba anfaca gobolkuna weydii sugayaa is odhanina gobolkii waa ka timaadeen hadhow markaad waxbarashadan dhamaysataan waxaad ku dadaalaysaan in aad dalkan iyo bulshadan iyo dadkan u tagteen ee gobolkii kaga tagteen ina wax ka bedeshaan oo aqoonta gobolka kula soo noqotaano aad gobolkii aydan meelaha kale la qaban xataa gobol kale waa inaydan la tagin gobolka togdheer wax ugu qabataan aqoontaasi aad iyo aadna waa ay u mahadsan tahay hay'adda geeska Afrika isku soo wada xooriyo markii ugu horeysay hay'adda geeska Afrika ay u dirto dalka Suudaan deeq waxbarasho arday ka baran doonta dalkaasi kaasoo dugsiga sare Al Nuur ee magaalada Burco sanad kasta laga diro ardaydaasi wa Khalid Bakayle fogaan araga xorta Star TV Burco.